waxaynu maanta dul istaagaynaa hawshan hadda ka socota baarlamaanka Soomaaliland ee ku saabsan waxa kootada loo yaqaan koota waa kelmad Ingiriisiya oo looga jeedo nasiib ama in gaar ah oo dumarka loogu talagalayo iyo wixii la mid ah waxaanu dul istaagaynaa xuquuqda sharcigu uu siiyay dumarka uu siiyay ma ka mid tahay inay baarlamaanka galaan ama xilalka waaweyn ee ummadda ka wada dhaxeeya ay qabtaan masalada noocaas asal ahaan kitaabka Alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankii soo jireenka ahaa nabi maxamed iyo khulafadii ka dambeysay laga hayo iyo culimadii islaamku waxay isku waafaqeen wixii ku saabsan xilka ummadeed ee siyaasadeed ama garsoor ha noqoto ama ha noqoto baarlamaan ama ha noqoto oo majlis shuura ah ama ha noqoto fulinta ha noqoto wasiirad inay noqoto ama madaxweyne ku xigeen iyo wixii la mid ah mas'uuliyaadkaas oo ay dad badan ku maamulaysa rag iyo dumar horta sharcigu muxuu ka qabaa kow ka labaad waxaan hadda la wadwado ee hay-aadku dabada ka riixayaan ee doodiisu ay socotana muxuu salka ku hayaan qodobka koowaad waxaynu leenahay sharcigeennu dumarku inay xilal waaweyn qabtaan ma ogola awalan wax loogu talagalay ma aha wax abuurkeeda iyo dabeecadaheeda waafaqayana ma aha hawlihii loo dirsaday ilaahay u abuuray ee bulshada ku taagnaydna wuxuu ku keenayaa dhibaato badan buu ku keenaya markaynu eegna mujtamaceenna si gaara u sii eegnana dhibku waa sii badanaya alla subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu waxay u qumayaan oo ay u taagan yihiin danaha dumarkay u taagan yihiin mas-uuliyadda alla subxaanahu wa tacaala iyaga ayuu saaray waxaa soo gudagelaya qoyskii talada waxaa la ninka ayaa iska leh isagoo xaaskiisa la tashanaya laakiin go'aanka kaba dambaysta halka la degayo xilliga la guurayo iyo hawlaha guriga ku saabsan go'aanka kaba dambaysta isagaa iska leh oo alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey waxaana lagu siiyey laba qodob waa bimaa fadala allahu bihi bacdahum calaa bacd waa waxyaabaha alla uu ku kala duway ee ragga uu dheeraad ku siiyey iyo wa bimaa anfaquu min amwaalihim iyo biilka ay bixinayaan culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa la mida ama aayadda cumuumkeeda soo gudagelaya haddii gurigii koobnaa ee nin iyo xaaskiisu ay wada joogeen taladii loo dhiibay ninkii loo dhiibay taladii guud ee ummadda loo talinayay ee rag iyo dumar isugu yimaadeenna waxaa mudan in loo dhiibo ragga in loo dhiibo dadka qaar baa waxay yidhaahdeen aayaddu waxay ka hadlaysaa guri oo guriga haddii la joogo ninkaa mas-uuliyadda leh haddii howlo dowladeed oo ummadeed loo tagana waa loo simayey waa been fakatay wey haddii gurigii lagugu maamulayo maxaad u malaynaysaa dantii weyneed ee ummadda ka dhaxaysay iyada ayaa mudan gabadha in lagu maamulo ta labaad waxaynu ogsoonnahay xilalka marka la qabto waxay u baahan tahay safar badan waxay u baahan tahay dhexgal badan waxay u baahan tahay qofku inuu bulshaawi noqdo waxay u baahan tahay meelo badan gabadhii xilka qabatay rag inay la wadaagto waxaa imanaysa safar badan inay gasho oo maxram la-aan ay gasho ama dee xooghayaheeda ama dadkii tiimkii la shaqaynaya ay la socdaan ajaanib ay la safrayso khalwo inay samayso oo mid dhiggeedaa markay la shirayso haddii la yidhaahdo shir albaabadu u xidhan yihiin bay madaxweynihii ay gashay ama wasiiraddii ay gashay wasiirkii la midka ahaa uu la galay oo albaabada laysu xidho dee waa khalwo sharcigeennu ma ogola wuxuu sharcigeennu ogol yahay maaha
ilaahay wuxuu hi waqarna fii buyuutikun guryihiinna ku nagaada oo wixii xaaje iyo dana mooyaane yaa laga bixin oo waa wax alle subxaanahu wa tacaala ku abuuray gabdhaheenna soomaaliyeed walow hadda laysa soo badalayo markay hawl u baxday suuqa ay ka dhammaato waxay wareegtaba gurigay fadhiisanaysa halka raggu ay maqaaxiyaha iyo bannaanada ay ka fadhiyaan si kastoo ay u xumaatay ilaahay baa ku abuuray inay gurigeeda ku noqoto waqarna fii buyuutikum dan bay uga soo baxaysaa laakiin xil ummadda ka dhaxaysa hadday qabato gurigeeduna xafiis buu noqonaya la galaabaxayo waxa ugu badan ee ordaya daba socdaana rag weyn ubadkeedii iyo odaygeedii iyo nolosheediina saamayn badan bay ku keenaysaa taasina waxayna tusaysaa howlaha noocaasa inaanay munaasib u ahayn waxyaabaha ina tusaya waxaa ka mida nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanaan oo ma guulaystaan dad taladooda u dhiibtay dumar u dhiibtay taladiina waxaa ka mida inay baarlamaanka ka qayb gasho oo go'aano ummadda wada saamaynaya ay gaadho waa xil sarawi caqli iyo garaad iyo aqoon way leedahay laakiin go'aanada intaa laaleeg alle subxaanahu wa tacaala uma abuurin haddii lagaba soo qaado dumar dhiiranoo sida ragga isu dhiga haddii la helo waxaynu leenahay sharciga ku xakameeye meelo kale oo sharcigu kuu ogolyahay ka faa'iidee awooddaada iyo kartidaada iyo dhaqaalaha iyo firfircoonaantaada uga faa'iidee laakiin tan sharcigaas ka hortaagay waxaynu ogsoonnahay abidar saxaabiga la yidhaahdo oo culimmadii saxaabada ka mida ayaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abidarow innii araaka daciifa waxaa tahay nin daciifa wa innii uxibu laka maa uxibu linafsi waxaan kula jecelahay waxaan naftayda la jecelahay laa ta'ammaranna cala inayn walaa tawallayanna maala yatiim laba qof ha maamulin waxa weeye xoolo agoonna ha maamulin nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi xil baan doonaya nabigu waxau ihi yaa abaa dar innaka daciif adigu daciif baa tahay yacni ka bixi maysid mas-uuliyadda intaa le ka bixi maysid cilmi badan buu lahaa ammaano badan buu lahaa diin badan buu lahaa waa nin adduunyada ka saahiday dad badan oo hadda inoo talinaya oo caalamulislaami ka talinaya 100 jeer buu dhaagay oo ninku mar hadduu hantidaada kuu ilaalinayo ilaahay uu ka baqayo waxbaad ku soo gaadhaysa waxbaa lagu soo gaadhaya taladiisu daciif baa ha noqoto wuxuu kaloo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam abidar uu ku yihi innaha amaana innaka daciif wa innaha amaana wa innaha yowma alqiyaamati khizyun wanadaama abu darow daciif baata hawshanina waa ammaano waa xil maalinta qiyaamana waa laga qoomamoonaya nabigu waa kala taliya calayhi salaatu wasalaam sidii baanu kaga joogay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan dee abidar baa daciif lagu sheegay laakiin gabadha aan daciifadda ahayn iyada maxaa loogu diiday nabigu siduu abidar daciif ugu sheegay buu dumarkao dhanna si guud dacafo ugu sheegay wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam allaahumma innii uxariju xaqa adaciifayn almar'ati walyatiim waxaan adkaynayaa labada daciif xaqooda waa dumarka iyo agoomaha in xuquuqdooda la ilaaliyo ayaana adkaynayaa buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo aynu ogsoonnahay markaynu adiladaba laga yimaado kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu sameeyey nabigu markuu wax maamulayay dowlad buu ka talinayay madiina uu ka aasaasay 10 sano wax ka badan lama sheegin nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida xil badhasaab iyo wixii ka sii hooseeya inuu gabadh u magacaabay lama soo sheegin bal waxaa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam markuu u baxayay duulaanadiisii mid ka mida ayaa waxa uu caliy bnu abi aalib oo waxaad ku hadhaa madiina oo si maamul intaan duulaanka ku maqanahay
cali waxa uu yidhi tukhallifuni fi الnisaa'i wالصibyaan ma dumarka iyo caruurtaad igaga tegaysaa nin haliyeeya buu ahayo dagaal badan oo geesiya nabiguna jecla calayhi salaatu wasalaam qacyarana nabiga uu ahaa nabigu waxa uu yidhi maya waxaad noqonaysaa sidii muuse uu haaruun ugu wakiishay qowmkiisa taasoo kalaad noqonaysa waxaa halkaa laga qaatay inun haddii dumarku ay jaanis heli lahaayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam calina waa kaxaysan lahaa caaishoo cilmi badnayd oo xaaskiisa ahayd buu ummadda kaga tegi lahaa inantiisa faatima oo caqli badnayd oo u jeclaa ayuu kaga tegi lahaa dumar kaloo cilmi iyo caqli lahaabaa joogay kuwaas uu odhan lahaa mar haddii dumar iyo caruur ay yihiin idinku isu sii taliya ma yeelin nabigu calayhi salaatu wasalaam raggii waaweynaa buu kaga tegay culimmadii islaamku waxay isku waafaqeen sida ibnu xasm baqawi ibnu qudaama iyo rag badan oo kale ay soo naqlinayaan in la isku waafaqay xilalka waaweyn ee ummadda ka dhaxeeya siyaasiga ah dumarku inaanay qabanayn maahaya sid la yasayo laakiin waa fududayn alla subxaanahu wa tacaala u fududeeya waxa ay qaadayaan oo waxa weeye loo dhibrinayo marka intaaba laga yimaado waaqica haddaynu u soo dhaadhacno welibana waaqiceenna intaan la gaadhin waaqica adduunka waxaa ka jira 200 oo dowladood wax ku dhowdhow 2-3 dowladood baa ka dhiman kuwa aan la aqoonsanayn haddii lagu daro sida somalilan iyo taiwan iyo kuwa la midka ah haddii lagu darana 200 iyo xoogaa bay noqonayaan 200 inta ay ka taliyaan dumar waa intii waa wax faraha lagu tirinayo la isla yaqaan waa midhadh rag baa ka wada taliya baarlamaanka ka hooseeya hadalkiisa iska daa 200 ee dowladood dhowr iyo 50 baa dowlada islaama inta kale waa dowlada gaala qayb muslimi baa ka mid noqoto marka la isu wada geeyo dowladaha inta la gaal iyo muslim wax 5% bay dumarku taladii qabteen macaanahu gaaladu ay u ololaynayaan 50-50 loo qaybsado oo la sinaado oo haddii 5 nin xil ay qabtaan 5 dumarina ay qabtaan waa tan loo socda innagana laynaga doonay maxay u dhici wey cilmi baadhis badan baa laga sameeyey qaar waxay yidhaahdeen dumarkaan naftooda ku kalsoonay oo aan isu dhigin tala inay qabtaan ama caalamka islaamka ha joogta ama caalamka gaalada waa kuwa ingiriiska ka hadlaya isumay dhigin macnaheedu waa maxay gabadhu ma khaldana gaabisna may samayn laakiin waa wixii alla subxaanahu wa tacaala u abuuray laakiin way khasbayaan gabadhu markaanay isu dhigin waa sidii alla subxaanahu wa tacaala ugu talagalay kuwii gaaladaan isu dhigin oo aan diyaar u ahayn qaar waxay yidhaahdeen gabdhihii waxay uga gaabsadeen caalamkao dhan xilal inay doontaan kuwii xilalka qabtay baa la cadaadiyey oo la dhibaateeyey oo la cunsuriyaday oo cunfi lagu sameeyey oo la aflagaadeeyey oo waxa weeye taxarush lagu sameeyey oo jidhkoodii halis la geliyey oo la damaaciyey oo dhibaato badani ka soo gaadhay sidaa awgeed bay nafahooda ugu baqeen sababooyin badan oo xaqiiqo ah oo lama taabtaana oo andhaha laga laabanay ayay ku sababeeyeen marka kuwa islaamka laga yimaado kuwii gaaladaha waxay uga gaabsadeen wax badan bay taxeen markaynu waaqiceenna u sii daadagnana waxa sii cad mujtamacu sida uu u samaysan yahay inay saamayn aan la soo koobi karin ku leedahay maanta alla kama dhigo haddii waxa weeye kootadaa loo xidho kootadu waa maxay kootada markii gaaladu dhowr iyo 80kii ay bilaabeen dumarka in ragga lala simo meel walba lagula simo ayaa waxay arkeen inay socon weydeen 95kii ayaa shir caalamiga lagu qabtay magaalada bakiin caasimadda China waxa go'aan lagu gaadhay
dumarkii mar haddii ay ku guulaysan waayeen xilalka dowladda koota in loo sameeyo iyaga u gaara oo iyagu ay ku tartamaan oo raggu aanay ku ciriiriyin sababtu waa maxay waxaa la yidhi dhaqaalihii raggaa gacanta ku haya iyagaa galaangal badan oo abaabul badan wax badan bay taxeen oo dee wixii alla subxaanahu wa tacaala ragga u abuuraya sidaa awgeed dumarku saanay u dayacmin waa in koota gaara loo xidhaa ilaa 95kii waa la waday meelo badan oo caalamkaabaa laga fuliyey meelo badan oo caalamka ka mida ma 14 dowladood baa dhaqangeliyey baa leeyahay 200 ee dowladood wax ku dhowdhow dhowr iyo 10 dowladood baa dhaqangeliyey oo sidii ay doonayeen u dhaqangeliyey caalamka inta kale waa ka jaanqaadi weyday kuwii dhaqangeliyey qaar ka midii dib bay uga laabteen qaarna waa ka doodayaan waxay kaloo doodi ka taagan tahay dimuqraadiyaddu waa in la sinnaado haddii la yidhaahdo dumarku waxay leeyihiin lambar gaara bay leeyihiin oo dumarnimo ay ku leeyihiin ragguna male taa lafteeda cunsuriyada bay yidhaha raggii baa la cunsuriyaday oo waxa weeye la dulmiyey kootada la sheegaya waa taas innagu markaynu mujtamaceenna u nimaadno gaaladu markay isku dayeen dumarkii inay kiciyaan oo siyaasadaha ay geliyaan oo maxaafid badan ay u sameeyaan oo dibadda ay u soo saaraan ayaa wax badan ay u socon waayeen waayo nidaam beelo ayaynu ku dhisannahay inantii waxa matalaya in adeerkeed baa matalaya aabaheed baa matalaya walaalkeed baa matalaya tolkeedii iyo qaraabadeedii baa matalaya cid matalaysaa u joogta sida hadda aynu wax u dooranno laakiin iyagu waxay yidhaahdeen matalaad iyaga u gaarabay waxa weeye u baahan yihin tii markay u socon weyday keli dumarku inay u soo baxaan ay arkeen mujtamacu inuu ka sii jeedo diyaar aanu u ahayn oo dhaqanka islaamkana uu khilaafsan yahay dhaqankii soo jireenka ahaa ee ummadda soomaaliyeed khilaafsan yahay waaqica uu ka hor imanayo saamayn badan bulshada uu ku keenayo markay waxyaabahaasoo dhan ay u socon weyday baa hadda waxa loo ololeynaya oo dabada laga riixaya in waxa weeye hay-adaha gaaladu dabada ay ka wadaan in ummadda lagu khasbo boqolkiiba 30 ama 25 dumar in laga dhigo taa macnaheedu waa maxay nidaamkii hore inoo yaalay la iskaga socday khaladka badan lahaa ee dhibkiisu badnaa ee waxay sarashaxaya ay rag ahaayeen waxa ololeynaya raggu u badnaa midhadhka hablehe ku jira laga yaabo inay nagaga xumaanayeen oo dhaqan xumo badan ay dhacaysa maalmaha ololaha ama doorashooyinka maanta haddii taasi socoto maxaa dhacaya horta waxa dhacaya in la yidhaahdo waxaa lagu tartamayaa 20 kursi oo dumarka u xidhan dumar badan baa u hanqal taagaya oo odhanaya raggaan ka baqaye dumar waan iska celin karaa dumarkaa laftooda 20kee loo codaynaya imise kaambeenka la qaaday u baahan yihin imisay bannaanka u soo saarayaan inay u codeeyaan hawl intaa leeg bay galayaan wax la soo koobi kara maaha qoyskii bay saamaynaysaa oo ninkii bay saamaynaysaa oo dhaqaalihii bay saamaynaysaa waxyaabo badan bay saamaynaysaa cirdigii iyo sharaftii iyo karaamadii bay saamaynaysaa maanta raggu waxa weeye inta badan waxbay gacanta ku hayaan ninka hunguri u galo qaar baa guryahoodii u iibiyey sidaynu ognahay laakiin wuxuu isleeyahay hadhow baad ka soo celinaysa gabadhu inta badan way iska ammaano badan tahay ma waxay diyaar u tahay wixii yaraa ee haysa hadday waxaysaba inta badan wax ma hayaan hadday waxeedii yaraa xaraashto raggu waxbay boobaano dhaadeeg bay leeyihiin ma soo ceshanaysaa dhaqaala burbur badan baa ku imanaya akhlaaq xumo badan baa imanaysa fasaad badan baa imanaya gabadhii markay waxa weeye xilalkaa gasho ama u ololeynayso saamaynta ubadkeeda iyo gurigeedii ay ku yeelanaysaa muxuu noqonayaa wax sahlan maaha hawshaasina waxay u adeegaysaa tii gaaladu ay doonayeen dumarka inoo dhowrsoon ee ubadka inoo rabaynaya ee aynu ku dhisannahay lafdhabarka inoo ah ee qoyska inoo haya in guryaha laga soo saaro qoysaskuna ay baaba'aan oo la ysku milmo ta noocaasabaa loo socdaa hawshu way ka dheer tahay
in gabadha xil iyo adduunyo lala doono hawshu waa ka weynta waa mujtamac baabiis wey gabdhaha muslimaadka ah waxay xishoonaya ilaahay iyo rasuulkiisa aaminsan ee ku qanacsan waxaynu leenahay waxaa xuquuq kuugu filan inta sharcigu ku siiyey taasaa xuquuq kuugu filan iyada baro inta kitaabka iyo sunnada lagugu sheegay baa kaa badan iyada sidaad u gaari lahayd horta ka shaqee insha allahu tacaala iyadaa khayrka iyo barakada iyo bulshada wanaaggeeduba uu ku jiraa laakiin waxa gaaladu ay dabada ay ka riixayaan in lagu dagtoomo maaha waxaan kaga baxaya kelmadaan u soo jeedinayno qolyaha hadda ka doodaya kootada iyo dumarka iyo howlahooda ka doodaya alla subxaanahu watacaala ummadda inay kaga cabsadaan go-aanka ay gaadhayaan saamaynta uu ku yeelanayo bulshadan muslimkaa boqolkiiba boqol dhaqankeedu in badan oo ka midi sharciga uu waafaqsan yahay wax badan oo diintii islaamkaa weli ilaashanaya inaan waxa weeye halka xaalku marayo inaan la sii baabiin ee xil la iska saaro maalinta qiyaamana alla subxaanahu watacaala waxbuu idinka weydiinayaa fasaad kastoo ka dhasha go-aanka aa qaadan doontaan insha allahu tacaala alaa wasalluu wasallimuu cala nabiyikum alamiin aladi amarakum allah biالصalaati wasalaamu calayhi biqowlihi fi kitaabihi اlmubiin in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala اlnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima